بسم الله. dunida farxad waad ka raadin kartaa laakiin kama heli doontid ilaa aad ka bilowdo inaad ku qanacdo wixii uu Alle weyne ku siiyey. marka qof isku dayo inuu kaa xanaajiyo, xusuusnow ma xakamayn kartid jawaabtaada, naftaada badbaadi oo ha u jawaabin. marka aad carabkaaga aadaab u yeesho oo aad ka adkaato, waxaad joojin doontaa cambaaraynta dadka kale. waxaad markaa diiradda saari doontaa daciiftinimadaada. haddii aysan arrin ku khusaynin ama kugu lug lahayn, ha ku lug yeelan adiga. isku day inaad si buuxda u cafiso kii ku dulmiyey. way adag tahay, laakiin abaalgudku waa weyn yahay oo waxaa bixiya Alle weyne subxaanahu wa tacaala. marka arrin la xalliyo ama la dhameeyo, waa in aan la soo qaadin wixii hore. waxaan rabnaa inaan adduunka ka dhigno meel wanaagsan, laakiin diyaar uma nihin inaan wanaajino nafteena. ha raadin oo ha qodqodin ceebaha dadka kale, diiradda saar wanaaggooda. kibirku waxa uu kaa hor istaagayaa inaad talo wanaagsan qaadato, laakiin is-hoosaysiinta ama tawaaduca wuxuu kuu oggolaanayaa inaad furfurnaato oo raadsato talooyin iyo cilmiba. maskaxdaada iyo wadnahaagu waa labada xubnood ee ugu awoodda badan jidhkaaga. cidnaha u oggolaan xakamayntooda. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.